gabadha abtiga dhalay iyo in adeerta labadaas mideeba guursan lahayd labadaba ma guursan lahayn sababtoo ah culimadu waxay dhaheen waxa ku sugan laba arin oo dacfu shahwa iyo qadcu rahim dacfu shahwa markaan u soo laabano يعني gabadha abtiga dhalay ama eedada dhashay ama habaryarta dhashay waa gabar dhiig ahaan ku dhow dareenka marka aad u qaadaysid aad bay yani u hooseeya 80% saas daraadeed marka waxa wanaagsan qofka inuu iskaga fogaado qofka qaraab ahaan u dhow waayo dacfu shahwa ayaa ku iimaanaysa laakiin gabadha adeerta haddii guursato shahwada daciif ay noqonaysaa يعني dacfu shahwa macnaha waxa laga wadaa dareenkii qofkaas dumar aan u qaadi leed boqolkiiba yani 80 hoos u dhacaya sababtoo ah dhiig ahaan qof ku dhawaay laakiin qofta markay ka fogta qaraab ahaan ama qabiil ahaan ay ka fogtahay dareenka aad u qaadaysid isku mid maahan waa dareenka tasoma marka saad daraad culimadu way ka digeen waxay dhaheen dacfu shahwa ku sugan qaraabada in lagu laabto hatta Soomaaliya badana qaraabada way ka gambataa oo qaraabada ma guursadaan inta badan ilaa ninkii wareera mooyaan markaas oo qaraabada ku laabta arinka labaad wuxuu yahay qadcu rahim oo qaraaba goos yani tusaale ahaan gabadha eedada dhashay ama habareeta dhashay ama abtiga oo dhalay hadaad furtid wal baqdaa abadan waayo eedada marka ku aragto xilada ki gabadhay furo waa kaasa dameelo mara abtigan wuxuu ku leeyahay asoo waxba ahayna wax ka dhigna gabaraan siisan gabadhin waa dhaqo waay hatta shirka tolka ma soo dhex fadhiisan kartid wajiga ku soo fadhiisata male waxa keenay hadaas dagaashan xitaa mar walba gabadha qaraabada ama abtiga dhalay ama eedada dhashay hadaas dagaashan xitaa ayda ka gar leh marka waxa weeyaan waxa kale oo ku jirto arin kale oo yani saddexaad oo hadda igu soo dhacday intaan warka ku waday waxa weeyaan yani sirahaadan in la ogaado khaasatan arrimaha ku saabsan sirrita way fududahay sababtoo ah gabadha abtiga dhalay ama eedada dhashay hadaad guursato waxa laga yaabaa in yani arrimaas ay ka waramaan ay ka sheekeeyeen ilaa waa dumar moogtahay masaakiin waxa laga yaabaa in wax iska waramaan ragay ku dhacdana anayb iiga sheekeeyeen arrimo noocaasa in yani arrimahooda khaaska oo asraat la rabay inay qariyaan dumarka inay u gudbiyeen qaraabada dhinaca kale ninkan saas waa xaalkiisa saas waa ninkan eber waa ninkan halis waa ninkan waxa waa caadi maahan waxyaabahaas oo kale marka culimada labadaas qodob ka sheegeen qodobka saddexaadna waxa weeyaan jeebkayga waaye qisooyinkii waxyaabii aan arka waaye marka waxa weeyaan maadaama dumarka badan waxa la rabaa inaad ku soo laaban raadkaada in adeertaada iyo gabadha abtiga dhalay ma guursan leeyahay maya ma guursan leeyahay waxa la watruq waraa'aka asaran jamiilan ma macna hada macnaa huwa gadaashaada raad qurxanina wata intii eedada ama habarta ku eedaaleed ee dhilad kii gabadha ay furay waxa ku ron in shaatigaada ku cadaa suudkaada wadatid oo waxba laga sheegin naaga islaamiska guursaada isfahmi weysaan waa kala tagaysaan laakiin naag qaraaba ah hadii aad furtid kiiskaas waa ku yeelaa hatta tolka hatta marka la qof ka soo doonato warninkan kiis hore laga leeyahay waa fashil marka la iska ilaaliyo okay la jina xaqule soo dhaw kale waa dhawaad